dowladda Kenya ayaa ka digtay in taageero loo muujiyo ururka Al-Shabaab waxaana sheegtay in qof kasta oo garab istaag u sameeyo kooxda Al-Shabaab uu la mid noqon doono cadow ka mid ah kooxdaasi. isuduwaha dhanka ammaanka ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya Domos Dhalana ayaa digniin u jeediyay bulshada xilli uu ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo Qorofa Xaraar oo ka tirsan ismaamulka Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. isuduwaha ayaa sheegay in shakhsiyaadka lagu helo arrintan ama la ogaado inay xiriir la leeyihiin amaba si kale taageero ugu muujiyaan laga qaadi doono tallaabo adag isla markaasna lagula xisaabtami doono arrintaasi. sidoo kale wuxuu u mahad celiyay shacabka sida wanaagsan ay ula wadaagaan xogaha ku saabsan wax walba ay uga shakiyaan ama ay u maleeyaan inay ammaanka lid ku tahay taasina ay fududeyso sida uu sheegay in laga hortago weerarada ay sameynayaan kuwa nabadgelyo darrada abaabulaya. shacabka ayaa wuxuu soo jeediyay inay sii wadaan la shaqeynta laamaha ammaanka si ay wax uga qabtaan kuwa doonaya inay ammaan darro ka sameeyaan dalka Kenya gaar ahaan deegaanada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. dowladda Kenya ayaa maalmo ka hor soo bandhigtay magacyada 9 qof oo lagu eedeeyay inay maalgelin u sameeyaan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo la xanibay dhammaanba dhaqaalahooda iyo xisaabaadka ay leeyihiin. Cabdirashiid Obsiye oo Cable TV Nairobi. magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo. warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday. fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel shirkadda dadweynaha